maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam soo galay masaajidka. kadibna wuxuu arkay saxaabi jaliil ah ansaari ah lagu magacaabo Abu Umaama oo masaajidka fadhiya. kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabiga ayuu weydiiyay, wuxuu ku yiri: Abu Umaama, maxaa ku fadhiisiyay masaajidka? ma ahan waqtiga salaada ee waa maxay sababta ku fadhiisisay masaajidka? saxaabiga jaliilka ah Abu Umaama wuxuu ku jawaabay: rasuulka ilaahayow, murug ayaa itaabtay, diinta ayaa igu batay rasuulka ilaahayow. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri: miyaan ku baraa duco haddaad aqrisid aad dhahdid ilaahay subxaanahu wa tacaala murugta kaa feedayo, diintana kaa gudayo? saxaabiga wuxuu yiri: haa rasuulka ilaahayow. kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri: subaxdii markaad soo waabariisatid iyo galabtii waxaad dhahdaa ducadan ah: Allahumma inni a'uudu bika min alhammi walhazan, wa a'uudu bika min al'ajzi walkasl, wa a'uudu bika min aljubni walbukhl, wa a'uudu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. ducadaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu baray. saxaabigii wuxuu yiri: waan aqriyay, waan sameeyay buu yiri. markaan sameeyay kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala murugteeda wuu iga qaaday, murugta wuu iga qaaday, diintana wuu iga bixiyay. soo adiga ma ahayn midka culayska dareemayay dhabarkiisa, midka ay murugta ku badatay, mugdiga ay ku badatay, culayska ay ku badatay oo deynta lagu leeyahay? daawadan weeyaan uu ku siinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam. ku dadaal aqri adigoo yaqiinsan, qalbiga ka yaqiinsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa aqbalayo. wallaahi albaab walba hadduu kaa xirmo waxaa jirta hal albaab oo maana la xiraynin, waa albaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba ku dadaal ducadan si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu murugta kaa qaado, deyntana kaa fududeeyo. maxaad sugaysaa? siina faafi, u bishaareey walaalkaaga si asigana u faa'iidaysto. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.